ahlu jannahu buu rasuulku yidhi markay jannada galaan afar shay baa loo bishaaraynayaa waxaa la odhanayaa ahluljannow maanta laga bilaabo waxaad leedihiin nolol aan dhimasho dambe lahayn shabaabnimo aan gabow dambe lahayn nicmad aan dhibaato dambe lahayn caafimaad aan xanuun dambe lahayn baa la odhanayaa ayna dunya xadiis buu nebigu ka sheekeeyey ibnu mascuud uu wariyey yaa adnaa ahla aljannati manzila jannada dadka galaya ka ugu darajo yar buu nebigu maalin ka sheekeeyey wuxuu yidhi waa nin ka soo baxaya jannada buu nebigu yidhi jannadu ka soo baxaya gurguurad buu kaga soo baxayaa albaabkii jannadu ilaahay buu hor imanayaa ilaahay baa odhanaya cabdi addoonkaygiiow orodoo jannada gal waa taase albaabkii jannadu imanayaa indhihiisii baa looga dhigayaa jannadii inay buuxsantay markaasuu noqonayaa yaa rabbi jannadaad teg gal igu tiri way buuxdaa meelaan ka dega ma haysto markaasuu ilaahay odhanayaa ma buuxday orodoo noqo gal haddana uu imanayaa mar labaad mar saddexaad markii afraad baa ilaahay odhanayaa orodoo jannada gal oo teg oo gal jannada adduunyadii iyo 10 baad leedahay keligaas adduunyadii imise 10 waa saaxada arlada weeyaan amaa waxa jannada yaalla adduunyada ma yaallin adduunyada maxaa yaalla markaasuu odhanayaa ataskharu bii ilaahu ma igu dheeldheelaysaa aw tadxaku bii mise waad igu qoslaysaa adigaaba boqorkiie maskaxdiisay ka dhaadhacayn arrintaas adduunyadii iyo 10 baa lagu siiye soco imaam qurtubi kitaabu tadkira wuxuu ku sheegay ninkaasi madaxweyne marka dawlad loo magacaabo kormeer buu sameeyaa dalkoo dhan buu soo maraa gobollada tuulooyinka distrigyada meel kastuu soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yidhi halkanuu ka bilaabayaa jannadiisii halkanuu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu ku soo wareegayo meesha uu mar marana mar labaad isha ku qaban maaye safarkaa wuxuu ka qaadanayaa 1000 sannadood imise sano 1000 sannadood fayaatii wuxuu imanayaa albaabkii jannadu isa soo taagayaa xawralcayntiisii baa ka hor imanaysa tanduru ilayhi wa yanduru ilayha buuhi ibnu cabbaas way eegi eegmadoo keliya ayaa qaadanaysay buuhi 40 sannadood imse sanaad dalka joogtaan annadra fad tucaaniquhu wa yucaaniquhaa wuu ku boodayaa way ku soo boodaysaa way isku dhegayaan waalmucaanaqatu qadra 40 sana buuhi cabdullahi ibnu cabbaas mucaanaqadoo keliya waxay saysanayaan 40 sannadood oo kale u soconayaa maqsinkii cuntadu ay taallay buu fadhiisanayaa 700 sano uu cuntada cunayaa bas muddada u yar uu cuntada cuno waa 7 يطوف عليه 10,000 خادم بالنبي يقول نكا جنة قال دتك جنة قال وقول جغير وقول فقير صن وقول فقير لما ده كره وقول جغير واحد دوشي الضواف يا ابو النبي يقول طبعا كن خادم بدول ضواف هيا خادم كلا أرك مايو خادم كان شراب كي عنتده وصل كوكلا مسجده قريها جنة ابو النبي يقول سدا قريها ندويه ما هنا سدا سيعشق وقال الله دام برسولك يقول asxaabtu way yaabeen yaa rasuulallah guryaha sidaan u galaynaa wuxuu yidhi sida shimbiraad u duulaysaan ad u galaysaan buu yidhi cuntaada cunaysaan biyahaad cabbaysaan sindhay iyo kaadimidna noqoni maayaan cuntadu waxaa isku beddelaysaa daacadaasoo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku beddelayaa dhididkaasoo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma harraadayaan ma bukoonayaan على الحمى مجرته وقبيالات مجرته قبيالات هلقا ما يسعون مجريسو ونزعنا ما في صدورهم من غل الباب كالجنة مركي جوغان لا بشيبه ولا قد ظهيرا يا هدي جيركوغين الجنة انتي قلين بالبديلة يا لابتو ذا وحي كجري غل يا حسد يا دبعات دي حنيد يا بغضقي يا وحينا الكاس على قريبا يا لا يسمعون فيها لغوا إلا السلامة وحكلا مغلي مايان سلامة بي مغليان
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم نزلا من غفور سلام قولا من رب الرحيم دحدودنا والسلام ملائكتنا والسلام حق سلام كنا سلام با كيمنيس سلامتك كيمنيس سلامتا waxay ka timid loodhanaya من الحي الذي لا يموت إلى العبد الذي لا يموت دينتي يا إيمانك إسلام نمضو وحي بني آدم كالسينيسا صفات إلهي كمدا الأبد صفة الأبد يلنا يقفك بني آدم مركو جنة قلو من الحي الذي لا يموت وحال أورنا يا السلامتني وحي كتمدي إلهي إنه لهي عن دمنين وحي أول إمتي أدونك إلهي يسونا عن دمنين هديته نعمة إلهي نو دياريي نعمة دا وحا كويلين وان هيسنا إيمان كان كوهلينا إسلام نمدا كوهلينا هوين كنا إلهي وأون نعميي والنبي قال عليه الصلاة والسلام إذا المرأة أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راد دخلت الجنة رقوا بالليلي وحيابها الجنة رقا اللوغو بلان قاضي وابلا أتكيه لكن دمرك وحيابها الجنة كوكالين وابا وحس كردبير ناكتك قبضة دمتابو النبي قولي هوين إذا دمتايدو ننكيكو راضي كيهي جنة يقشبو رسولكو يلي الرسول حديث وحا وكيري دتك الدين دتك الصلاة كذا الباب بي جنة كليهين ليدا باب الصلاة دتك الصونك اللازمة الباب بي كليهين باب الريان ليدا دتك الصدقات بحية الباب بي كليهين باب الصدقة ليدا دتك الجهاد كوددالا الباب بي كليهين باب الجهاد ليدا أبو بكر بايري بأبي أنت وأمي يا رسول الله هو يدي يا بايبا وكوكو في دين وكوكو فراني سيديد الباب الجنة لا دهي ننكقل يالله غيره مجرابو مركز النبي يقول نعم وأرجو أن تكون منهم ها ويجي الرق سيديد الباب الجنة دبا لو غير يا الأورانيو كان كسوقل ويجران رقا أين أتكمل تايبا رجيب الرسول كده أبو بكر كليا كقلي ما يسيديد الباب وحلق ليس قبض الصالحة دا إذا المرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها هديها وين يدمو النبي يقولي شنت وقتنا تكتو بشر رمضان أي صونتو فرجيغان حمانتا كدورساتو نيكيغان أي أضيعدو سيديد الباب الجنة أي ليدهي أي كيدون تكاكشاب رسولكم سيديد الباب الجنة ليدهي أي كيدون تكاكشاب رسولكم هدي قبض لغاها لأفرتا عمل بشر رمضان أي صونتو شنت وقتيو إلاليسو حمانتو كدورسوناتو يزوج كيغوي أضيعدو أفرتا قبض لغاها لابو رسولكم يدي سيديد الباب الجنة أي ليدهي أي أبو بكر دبجوك سنة لقلي دون تقيامه وقال له ويدي النبي صحاب قبضه هو ويدي صحابياتكم هوينك مؤمناتك يا حور العين تمت كيف اللي بدن بالقويدي عائشة ويديس والنبي قولي قبض مؤمنات يا حور العين تكف اللي بدن بويدي وحيتر محاك كف اللي بدني واضح حور العين وإلهي باسمي النور بالغ سميه وحو النبي قولي بصلاتهن وصيامهن وطاعة أزواجهن وحيك كف اللي بتين حور العين تو هوينك مؤمناتكو حور العين توحي كقفل لباتين صونك أي صوميان صلاة أي تكنيان إرقوغا يا ضيعيان فضلقينا إيه مسبكينا دين إسلامكم مال سرين دكتي نبا النبي قوي مدو يدي dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo raamba wuxuu nabigu yiri hooyada haddana hooyada haddana hooyada haddana aabaha buu rasuulku dhageyso gabadheeda muslimaday diinta islaamku hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagi kor bay u qaaday kor سيدنا عبد الله بن عمر بن يمدي لعل هذا الحديث هو مرفوع ويان عبد الله بن عمر بن يمدين مركز سوري يا ابن عمر hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaas soo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeyey xaqeygii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yiri xaqeygii kugu lahaydood gudday iska daaye maalinkii ay yaray yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay maalinka kaliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii ma soo celin buu kaydi حقينا والدهن حقينا دين الإسلام كمال بكتير رساء أدقونا اسكو حد قد بن ولا شيء مسلمة داي رقم بالله ده هاي دين بالله ده هاي إسلام باته هاي مؤمنات باته هاي وحد قد يتا دتكي هوينكي إلى هاي الدويد الأوراليكا كغن نغضي وددو دي مريم بنت عمران كدايو آسيا بنت مزاحم كدايو فاطمة بنت محمد كدايو خديجة بنت خويلد كدايو دتكاسا الدون كان ياخرة كل باني
sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yidhi afartaasna waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiya weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay degganayd halka baydka guriga ninka rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina muxammedo tacab iyo rafaadda waa u dulqaadatay adduunyadana way ka sahay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayna dhigtay raabica ayaa la weydiiye oo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacday nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaan la yidhi waxay tidhi gabadh xigmad lahaydoo afartaaba annaka unbaa dhalla bay tidhi subxaan allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo